saddex maalin iyo laba habeen aan muqdisho joogay markii aan baxay kadib waxaa ahayn waxyaalihii igu cadka badnaa ma aanan islahayn hadda dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaheeda amniga way ku arkayaan ama waa lagu qaban doonaa ma aanan ka qabin ma cabsi ama qabin laakiin niman aan dirirnay oon fahmaya inay dadkuna saameyn badan ku leeyihiin bay cabsida ugu badneed iyo khatartii ugu badneed oo aan qabay labadibana rabbi waa iga badbaadiyay tabaaraka watacaala waxaana ii suurta gashay in xilli maalinimo ah soo raaco doon kadibna aan kismaayo ku imaado dabcan dee dadkii igala shaqeeyey oo soomaaliyeedna oo ku aan horay ereygii ooga mid ahaa inaan u mahadceliyey cid walbaba ha ahaato ama dowladda jubbaland ha ahaato ama dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin kamid a ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan qof kasta oo ay kamid yihiin hataa qoladii doonta ka ahayd darawliinta oo doontii lagu waday qof kastoo shacab oo soomaaliyeed oo barnaamijkaas igala qayb qaatay mustawa kastaba ha lahaaday waa u mahadcelinaya marka qorshe aad ku soo baxsatay waxaa sidoo kale gacan ka geystay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka dabcan haa xilligan aad ila hadlayso marka halkeed ku sugan tahay waxaan ku suganahay degmada beled xaawo qayb ka mid ah aniga iyo mas-uuliyiin kale oo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland uu kamid yahay waxaana ka hayaa ciidamadii jubbaland ee gobolka gala ku sugnaa oo intii aan muddadii afduubkaliya haystay isku bedelay sistamyo kale inaa ciidamadaas dib u habeen ku sameeya haddii rabbi idin laakiin warar aan helnay waxay sheegayaan inaad ku sugan tahay hotel ku yaalla magaalada mandheera halkaas inay kugu ilaalinayaan ciidamo ka tirsan militariga waddanka kenya meesha aniga aan ku suganahay iyo ciidamada aan la joogay iyo aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo tiimka kaleeto oo aan halkan oogu imid intaba iyada oo maqal iyo muuqaala inay ummadda soomaaliyeed fiirsan doonto arrintaas marka hadii mandheera iyo beled xawas waa laba magaalo daris ah way dhici kartaa inaan usoo gudbo saacado ama daqiiqado aan dan ka leeyahay aan joogo laakiin anigu meesha aan ku sugan oo hadda aan kaala hadlahayo waxaa weeyaan magaalada beled xaawo qayb ka mid ah ma garowsan tahay in magaalada buulaxaawo ee aad sheegtay inaad ku sugan tahay iyo guud ahaan gobolka gadoba ay la wareegeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waa sax hadda magaalada balaxaawan ku suganahay waxaana ku sugan laba ciidan waxaa isla jooga marka ciidan oo hadafka dowlad federalismka ka hor imaadsan oo diidan iyo ciidan dowlad goboleedka soomaaliyeed oo jubbaland uu leeyahay oo daraawiish ah oo gaadiidkoodii iyo qalabkoodii haystaa iskula sugan laakiin hadda maanta laba aragti kala duwan leh iyada oo askartu midna uu yahay ciidanka dowladda federaalka soomaaliya midna dowlad goboleeda hoos tago way hal dalna wada leeyihiin hal cadowna leeyihiin markuu aqli saliim ah shaqaynaya laakiin hadda aqliga asagaa waxaad moodaa maanta mid ka duwan inuu ka jiro magaalada beled xaawo iyo gaar ahaan gobolka gala degmooyin kamid a doolow luuq iyo ama gobolka gala o dhan ba aan dhaho dowladda federaalka ee aad ka soo baxsatay ciidamo ka amar qaata ayaa ku sugan magaalada buulaxaawo marka sidee isu keenaysaa inaad si nabad ah ku joogto magaalada walaale ciidanka magaalada jooga ciidan ka tayo wanaagsan kana qalab wanaagsan baa aniga gacanta igu jiro oo iga amar qaadanayo oo dowlad goboleedka jubbaland ay leedahay anigu aan xukumo marka kuwo kale oo haddii aan dareemo in ay ciidan la-aan haysa aan la iman karo oo goobo kale ku suganna way jiraan oo jubbaland ay leedahay oo aniga iga amar qaadanayo oo sugahayo hadda heegan ku wada jiro marka wax cabsi ah oo aniga aan qabo oo aan isleeyahay waxaa ciidan hadda dowladda federaalka ka amar qaadanaya ku qabanaya ma lahan ujeedkaagu ugu weyn muxuu yahay aniga halkaas waxaan u tegay hortaro kale mas-uuliyiin ana meesha mandheeray sii joogeen qayb ka mid ah walow hadda aan isla wada gudbinay oon joogno soomaaliya oo degmada balxa oo wada joogno waxaanu ulajeedkaygu uu yahay inaan dib u habeen ku samayno ciidamadii dowlad goboleedka jubbaland oo la dhibaateeyey oo la kala furfuray muddadii aan xirnaa iyo shacabkii la jaha wareeriyey oo nidaamkii ay ka tirsanaayeen lagu diray intaba degmooyinka keliya ah oo isku furan oo baabuur qof mas-uulaya mid shacab ah oo si nabada ugu raaci kara waxay ahayd degmooyinkan hadda maanta aan ku sugan oo balaxa doolo iyo luuq maantana qaskii ugu xumaa baa ka jiro amni daradii ugu xumaa baa ku jiro taas marka waxaan dhihi karaa waa arrin khatarteeda leh cadowga shalay lala dirirahayo dalka haystay oo argagixisada ahna in laga soo jeesto ciidamadii soomaaliyeed ama dowlad goboleed magaceed ha ku socdeen ama dowladda ha ku socdeen dhexdooda la isku laayo midaasna waa mid la weydiin doona ciddii barnaamijkan soo abaabushay waa gartay leeyahay dowladda dhexe soomaaliyeed madaxeeda u sarraysay baa go-aankaas qaaday hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international waxay kugu eedeysay inaad dad rayda ku laysay gobolkaasi islamarkaana ay dalbanayso in lagula xisaabtamo diyaar ma u tahay waa ka xumahay waxaana dareemayaa dhalinyarada barnaamijkaas hay-adda inay magaceeda yahaydu hay-ad international ah inay ilaaliyaan magaceeda aaday u wanaagsanaan lahayd iyo hay-adda shaqadeeda ay ku ekaadaan laakiin niman dhalinyaro ah oo muqdisho jooga oo laba ah oo dabcan inta badan taageero u ah xisbiga hadda xukuumadda hayo barnaamij siyaasadeed bay u bedeleen oo siyaasadeed ay u bedeleen inay ku salaysan tahaan dareemayaa codka ee amnesty ay ka sidayso warbaahinta aad iyo aad baan ooga xumahay waxaana rabaa inay isweydiiyaan ayaka kiiskaas aniga 2015 anoo isbitaal dalka Thailand shil aan galay ugu jiro ayaa
barnaamij siyaasadeysan oo asalna ku salaysnaa sistamka dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay aragti duwanaan jubbaland markii la dhisahayay rag siyaasiyiin aan isku qabanay barnaamij siyaasadeed oo ku salaysan baa waxaa laiga qoray warqad siyaasadeysan anu shacabka soomaaliyeedna ma xasuuqin mana laynin shacabka soomaaliyeedna waa shacabka aan ku taaganahay dhiiggaanaga nafteedana aan u horeyna inaan badbaadino mas-uuliyiintana aan u nahay dabcan ciidamo markii shacab ay ku dhex diriraan argaxisan kula dirireen khaladaad way dhici karaan laga yaabo in ay ciidamadaas geystaan laakiin anu shaksiyan cabdirashiid ahaan waxaan dhib u geystay oo shacab soomaaliyeed aan ma jirin laakiin cabdirashiid dadkii la sheegay inaad gobolka gado ku laysay eheladooda iyo cadaalad dalbanaya oo doonaya inay kugu markhaati kacaan marka ma taasa siyaasada may olale aniga waxaan dhibaato u geystay oo dad ah oo shacab soomaaliyeed oo ani aan dhibaateeyey ma jirto dagaal shabaab iyo ciidanka naga dhex maray way dhici kartaa xabado la isku daysto shacab inay ku dhinteen laakiin dad shacab oo soomaaliyeed oo aniga si gaara dhibaato ugu geystay ma jiro dowladda federaalka waa tan kugu raajoogta ciidamo ka amar qaatana waxay ku sugan yihiin isla magaaladan aad sheegtay inaad ku sugan tahay marka halkee doonaysaa inaad ku noolaato dowladda soomaaliya waa sax inay xabsi ugu hayaan oo jubbaland shacabkeeda iyo nidaamkii ay dadku samaysteen ay burburiyaan inay iraadiyaan oo ay dagaalamaan waa wax imaan karo laakiin waxaan hubaa dagaal inaysan qofna u wanaagsanayn qofkii aniga iraadinaya waxaan joogaa dalka soomaaliya waxaan joogaa buulo xaawo meel oogama socdo gobolka degmooyinkiisa kalaan tegi doonaa biidn illahi tacaala ismaayo xaruntii dowladda goboleedka soomaaliyeed ismaalgaarkeed baan tegi doonaa talada dalkan dhinac kala haanayaa qofkii aniga qabanayo ama shaksiyan si gaara i raadsanayana waa soo dhawow waan leeyahay kaale welcome